daawadayaal ku soo dhawaada YouTube-ka xaqiiqsan media. Wararka aynu ka helayno degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in tuulo hoos tagta degmadaasi uu nin hubaysan ku dilay xaaskiisa oo ahayd ganacsato. Falkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay tuulo lagu magacaabo Calulweyn oo hoos tagta degmada Warshiiq, waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan sida uu u dhacay dilkaasi. Dadka deegaanka oo la hadalnay ayaa waxay inoo sheegeen in falkan uu yimid kadib markii ninka iyo xaaskiisa uu soo kala dhexgalay muran, hase yeeshee markii dambe uu toogasho ku dilay, waxaana ninkaasi lagu magacaabo Jimcaale Chinow. sidoo kale dad deris la ah ninka wax dilay ayaa waxay magaca xaaskiisa ku sheegeen Xaliimo Cadey, iyadoona haysatay 10 caruur ah oo 8 ka mid ay ahaayeen agoon oo ay u dhashay nin kale oo horey u dhintay, waxaana gacan ku dhiiglaha ay u dhashay 2 caruur ah. wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in degmada Warshiiq uu ka socdo dadaalo lagu doonayo in lagu soo qabto ninkaasi oo goobta falka uu ka dhacay si degdeg ah uga baxsaday. dadka ku nool tuulada Calulweyn ee hoos tagta degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta aad u hadal haya dhacdadan uu xaaskiisa ku dilay nin ka mid ah dadka deegaanka. fadlan subscribe saar channelkan, like iyo share-tana ka iloobin, sidoo kalena gambaleelka furo si wararkii ugu dambeeyay ee YouTube-keena uu idiin soo gaaro.